mahdi ku soo dhawow barnaamijka booqashada Baana Caymoon wax yar waxaad nala wadaagtaa suugaanta wadaniyada ah wixii aad nooga haysid horta suugaanta wadaniga iyo sideedaba suugaanta marka halganka Soomaaliyeed laga hadlo Soomaalidu afkeedu ma qorayn dadka Soomaaliga waxay ku hadli jireen luqad ay wada yaqaaniin waxaana u ahaa dhinaca isgaarsiinta dhinaca media waxaan la yiraahdo radio TV suugaanta wahayd halganka oo dhanna waxay ku tabin jirtay hab afeed oo maadaama afkeenu uusan qorayn oo nimankii isticmaalka ahaa ina haystay dawladihii isticmaalka ahaa ee dhulka Soomaaliyeed loo kala jarjaray iyagu luqadahoodii rabeen inay ku khasbaan ma ay rabin in luqadda Soomaalidu tanaado oo ay shucuurkeeda ku muujisato qoraal iyo waxaas dadkeenuna wuxuu ahaa dad aan luqadoodu qorayn laakiin wuxuu lahaa luqadda Soomaalidu waxay lahayd luqad qani ah oo afhadaleed waxaan ay ku tilmaamaan Englishku marka Ingiriisiga lagu hadlayo oral society oral bulsho hadal luqadeeda ku gudbisa marka suugaantu oo dhan si hadala loo gudbin jiray hadalkana wuxuu ahaa dhinaca gudbinta jaraa'idka iyo TV-yada iyo raadiyaha waxa uu ahaa gabayga heesta waxaasa u ahaa marka halgankii Soomaalidu ay gashay taas ay ku gashay anigu heesaamihi gabyana may fatorta laakiin marka la yiraahdo maaragtay marka laga hadlayo gabayadii taariikh dheer bay leeyihiin oo Soomaalidu intay halgamaysay oo ilaa iyo Axmed Guray ilaa iyo silsiladihii kala duwanaa ee halganku marba marxalad buu maray marxaladahaas iyada ah kulli Soomaalidu suugaan bay ku gudbisan jirtay marka matii 60kii markii calankii la saarayay waa heeso halkaas YouTube-ka laga saari karaayo dadku dhageysan karaan oo ma rabo inaan anigu aan ku heesotaa hase yeeshee tii ku saabsanayd waxyaalihii halganka ahaa waxaa ka mid ahaa markaynu taariikhda dib u jaleecno u eegno waa hore ayaa oo waqtigii halganku darajooyin buu lahaayo mid wuxuu ahaa kii Axmed Guray mid kii daraawiishtu ahaa koobilaata ka socday mid kii ururkii dhalinyarada ee SWL buu ahaa mid kii SNL iyo USP xagga waqooyiga isaga laftiisu wax ka bulinayay ayuu ahaa waxaasoo dhani maxfalka marka la isugu yimaado waxa ay wax ku soo bandhigi jireen wuxuu ahaa suugaan marka anigana malaha hadda waaba iska yar weynaadayo xusuustayda malaha wax badan kuma xadhin laakiin haddii aan mid soo qaato waqtigii daraawiish niman wadaada ayaa Ingiriisku soo diray oo sideed ah wadaada iyagu waxa war nimankan xagee ka galaa aan xagga ka gallo oo bal waxa ay dhageystaan nimankan dagaalamaya waxa ay dhageystaan waa amuurtaas bal aan ka gallo dhinaca oo ninkaas ina Cabdalla Xasan la yiraahdo la soo hadla oo waxa tiraahdaan waniyo ummadii waad kharibtay dagaal baad ku wadaa nabadii waa diiday bal la soo dooda ilaa idinkuba islaam baatiino wadaadaadkiina
wadaadadii baa loo soo adeegsaday marka markay u yimaadeen oo ay yiraahdeen fariin baan ku wadnaa de culimo u timid ba ahayd oo si wacan baa loo marti sooray waa la soo dhaweeyay kadibna wuxuu ka dhageystay fariintii loo soo diray fariinta markii loo soo diray ayuu wuxuu doodiisii ku gudbistay si gabay ah oo kooban marka iyagii walaalahood buu ku tilmaamay waa walaalahood marka 9 qof 8 loo soo diray isagii waa 9 ka wuxuu yiri 9 nin oo walaala ah sideenaas 8 ay isku baxtahay sidiinaas ninkuna uu bahgaar yahay sidaydaas haddaynu isa siri sideedaba ma iska kala tagnaa sideenaba fariintoodii buu ku diiday fariintii wuxuu yiri marka taasi de waxa weeye marka waxyaalaha laga hadlayo halgankeena marxaladihiisii soo maray markii de xisbiyadii siyaasiga ahaa dhasheen dagaalkii labaad ee adduunka markii ay dhasheen oo xisbiga SWL dhalinyaradii ay abuurtay iyana waxay ku halgabi jireen wuxuu ahaa suugaan iyo gabay iyo luqad iyo khudbado ay dadka u jeediyaan si fiican mahdi waxaanu ognahay in suugaan badanna ay kaa buuxdo dhinacaasna laakiin maanta munaasabada dadkan la wada wadaagaynaa waana wada dhageysanaynaa aad baad ugu mahadsan tahay in aad noo faahfaahisay doorka ay suugaanta ku lahayd halgankii aad baad u mahadsan tahay